أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله. sida aad wejigu waa dareenka wejiga dadka waa macallin, waa lagu qiimeyn karaa. saaad u aragtaan wejigayga maanta, run ahaantii waxaan aad iyo aad uga xumahay dhibaatooyinka ma dhammaatada ah, dhibaatooyinka aan kala go-da lahayn ee ummadda Soomaaliyeed meel kastoo kaga nooshahay adduunka haysta, gaar ahaan kuwa gudaha Soomaaliya ku nool meel kastoo Soomaali joogto dhibaatooyinka haysta ayaan aad uga xumahay, gaar ahaan 30 sano ugu dambeysay. ta kale waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun, inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun. Allah subhanahu wa ta'ala korahay waxaan ka baryahayaa in uu jannadiisii macaanid ka waraabiyo kuwa ku geeriyooday dagaalka walaalaha ah. Soomaali waa walaalo ee isdilaya. run ahaantii aanu fikirkaasaan qabaa inay Soomaali ay walaalo tahay, laakiin waxa isku diraya isku kadeedaya inuu yahay munaafiqiin, baarlamaanka shayaadiinul insi, garasho hooseyn, aragti gaamni. sababtaasan jeedin markii waxa weeye dadka walaalaha ah ee dhiigoodu qumanayo intii dhimatay Allah u naxariisto, inta ku dhaawacantay ama ku dhibaatoodeena Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ugu baryahayaa inuu u boogadhayo. waa dhacdooyinka hadda ka dhacaya Soomaali, gaar ahaan markii Soomaali laba loo qaybiyo oo aan hadda markii Soomaaliya waxaa loo qaybin karaa 3. macnihii waxaa la dhihi karaa koonfur, gobolada dhexe iyo waqooyi. waxaa loo qaybin karaa haddana 2 oo waxaa la dhihi karaa waqooyi iyo koonfur. marka dagaalada waqooyiga Soomaaliya ka dhacaya ee Soomaalida aad iyo aad baan uga xumahay. intaa kadib 30 sano ugu dambeysay Soomaali dhibaatooyin isdaba joog ah ayaa qabsanaya. taana waxaan saldhig uga dhigahayaa waa qadarta Alle, waa sabab waxay kasbadeen iyo ayay natiijadooda helayaan. haddaan intaas ku soo koobo, Soomaaliya waxay leedahay hawo, cir, waxay leedahay dhul, waxay leedahay bad. intaba maanta Soomaali gacanteedii kuma jiraan baan dhihi karaa. sababtu maxay tahay? sababtu waxaan u soo qaadanaynaa xarunta Muqdisho ee Soomaaliya waxaa ku yaal xafiis qaramada midoobay ah. xalana meesha la yiraahdo waa xarun waxaa ku yaal United Nationska, qaramada midoobay. siyaasadda reer galbeedka ugu tunroon tahay ee hogaaminayso hogaamiyaasha Soomaaliyeed waa lagu baaraa markii maaragtay arrimaha security-ga ay hawl soo aadaan. baaritaan baa lagu sameeyay. ninkii madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha Soomaaliga ah waa lagu baarayaa. marka boqocad ka mid ah Soomaaliya gacanta waxay ugu jirtaa beeshii caalamka, as a global policy bay gacanta ugu jirtaa. waa la nisqaamiyey awoodii dowladnimo, aqoonsigii la aqoonsanaa Soomaali waa la daciifiyey. halkaa waxaan ku daynaynaa in la daciifiyo Soomaali awoodeedii la daciifiyey. waxaa kale oo iska cad 9 waddan oo Afrikaan ah ayaa waxay leeyihiin waxaan ilaalinaynaa dowladnimada Soomaaliya, aan ilaalinaynaa. this is the question. waa su'aal. inta haddaan dhahno marka Soomaaliya meeshay taalo intaas ay nagaga filan.
soomaaliya dhalinyaradeedii way tahriibeen soomaaliya dhalinyaradeedii waa shaqo la-aan soomaaliya waxaa shacabkeedii iyo odayaasheedii iyo arrimaheedii diinta iyo waxeedii waxaa la isugu daray wax la yidhaahdo qaybi oo xukun waa qabyaalad baa madaxa la isu geliyey soomaali dhalinyaradeedii waxjaradkeedii waxaa lagu basanbaasiyey ya oo lagu dilay jaad baha la yidhaahdo daroogaa lagu dilay oo waxay u tartamahayaan dowladda etoobiya iyo kenya sidii ay u dhoofin lahayd soomaaliya 30 sane ee ugu dambeysay waxay noqotay laba dabaqadood dabaqad sare iyo dabaqad baaba'day oo caydha oo aan noolayn oo la qarxinahayo oo la ololinahayo marka waxaan leenahay tamaanta dhacaysa marka ee ka dhacaysa bartamaha macnihii waqooyiga soomaaliya ka dhacaysa ee ummadda soomaaliyeed isu dhibaatada ka dhacaysa aragtaan eed usoo taagintiin ee laifaan aad maanta u aragtaan waxaan dhihi karaa waxaa lagaga bixi karaa un iyada oo la helo ummad soomaaliyeed oo u kacda oo fayow oo caafimaad qabta oo soomaaligu inuu isku mid yahaan anuu aaminsanahay fikir ahaan soomaali waa isku mid meel kastoo adduunyada kaga noolaya ummadaas oo kacda oo aragti dheer yeelata oo ajandayaal iska celisa aragtida dheer ee himilooyinka siyaasadda ama reer yurub ha ahaado ama gumaysiga la caawinahayo etoobiya ha ahaatee ya in loo kaco ay soomaali kacda dhalinyaradeedu kadibna ay dhibaatooyinkeeda ajandayaal istaraatiijiyad ay xalisa ayaa lagaga bixi karaa waxaan soo qaadanayaa marka qisadan waxaan dhacahaya naf teedii gashay qof bini aadana oo badbaadin karaa ma jiro tusaale waxaan soo qaadaynaa hadday isku tagaan adduunka dhan naf ma qaadi karaan ilamaa ay teedii dhammaato tusaale waxaan usoo qaadanaynaa waddanka kenya waxaa ka dhacay qiso cajiiba qisada cajiibka ka dhacay waddanka kenya waxay ahayd bahalka libaax la yidhaahdo waxaynu ka dheragsannahay in la yidhaahdo libaaxa lab waxaa la yidhahdaa aar ka dhadigna waxaa la yidhahdaa gool libaaxa goosha soomaalidu inta badan waxay dhahdaan gooshu way dhagalaadahay waxaasaa loo leeyahay iyada calool adag iyada ayaa khatara iyada carruurteeda ilaashata iyada ayaa ugaarsiga ku fiican marka libaaxi sidaa ahaa ee ugaadha biciidka jaranuugta ugaarsanaysa ee nafaqaysan jirtay ayaa waxay badbaadisay jaranuug yar oo dhal ah ay haysatay oo ka badbaadinaysa cadowga soo weerarahay qisadaa waxaa cajiiba marka jaranuugtii ay dhaqatay haddana tii yareed way ka dhimatay mid labaad bay haddana soo qaadatay meesha waxaan idinka tusinahayaa saacad tiisu gashay oo malakumood qof dilaya bini aadana qof bini aadanahoo kale oo ka baajin karaa ma jiro waxaan dhacahayaad arkaysaan marka ee soomaaliya ka socda ee hubka la isku guranayo ee wiilasha iyo dadku naftu ku baxayso qadartoodii baa gashay sidaa awgeed in laga hortago oo lagu dhawaaqo oo loo ololeeyo inay kala badbaadaan mooye anigu waxaan ka soo horjeedaa in garab lala jirsado oo soomaali lala kala jirsado ya meeshaas waxaan leeyahay allaha weyne subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryahayaa in uu siiyo oo noogu ducaynayo gooshaas badbaadisay jaranuugta fikir ah soomaali oo dhan meel kasta oo ay joogto inuu ilaahay allaha weyne subxaanahu wa tacaala siiyo awood ay noqdaan iyakaa gool isku ahe oo iscunahaye oo isgumaadahaye inuu xag rabbi rubuc kaga soo dejiyo soomaali meel kastoo ay joogto ay noqdaan gooshaas jaranuugta badbaadisay intaasaan kaga gudbaya anuu aan xigmaddaa ugu soo qaatay waxaan rabaa inaan usoo noqdo waxaa yaabka yaabkiisa ah shaksi ka qancay
halgan ya waxaan dhahayaa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen yaan tusaale usoo qaadanaya oo halgankeedii 28 sano u dambeysay gumaysi madow TPLF wixii la dhihi jiray casharkii la siiyay aad ogeydeen hogaankii aragtidiisu jaamaaday ee sanadii 2018 xilligii ay sii dameyshanayeen TPLF Tigray iyo inay sii dhacayeen Addis Ababa Nairobi intii loogu tagay ya la soo xareeyay halgamayaashii ku haleeyay naftoodayaashii islahaa hogaankana aragti dheer buudinaya hoolaalay ee wada hadal aan jirin Ethiopia naftoodayaashii diyaaradda intay soo saareen Addis Ababa maalin cad soo daadiyeen oo Isaayaasna Eritrea tiisi nafta ala lahayd u haysay Ethiopia saa u leeyay abi ayaa wax lala yaaba ay tahay inay dhahaan maanta waxaan ku hadlaynaa codkii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen oo waxaan arkayay iyada oo la leeyahay ay ku hadlayaan oo leeyihiin waxaan ka hadlaynaa dhibaatooyinka laascaana iyo Soomaaliya ka dhacaysa ya wax lala yaabo weeyaan kuwaasi waxay la mid yihiin 1994 aan dhahe wada hadalkii Ethiopia ay soo abaabushay ee Bashir Cabdi Xasan loogu magac daray laga soo bilaabo xubno waxaa jiray laftigoodu ka qancay oo gumaysi isku dhiibay kolba kii soo jala wuxuu yahay isyaan gumaysi madow Ethiopia u yahay wuxuu shaqeeyaa oo horumariya ajendayaasha gumaysiga horumariya wuxuu kala qaybiyay kuwii iyaga laftigooda asmara soo galay oo makhaatimo doonta marka kuwaasi Soomaaliyeena u qaadan kuwaasi inay wakiilkii jabhadda yihiin kuwaas waa kuwa isdiib sida awgeed anu waxaan dhihi lahaa gumaysiga xilligii halganmada kala duwanaa lagu soo jiray haddaan ka soo qaadno hadda 100 sano ugu dambeysay Soomaalida ogaadeen halganmada kala duwan ku soo jirtay 30 sano ugu dambeysay markii 100 sano la qaybiyo saddex loo qaybiyo waa 28 sano halgankii soo socday ya kuwa isdiibay maanta inay sheegtaan inay wakiilkii halgankii yihiin ba cajiiba marka sida awgeed waxaan ku soo gabagabeynayaa kuwaasi waxaan dhihi lahaa ha sugaan magaca loo soo bixinayo waxaan ka hadlahayaa halgamadii kala duwanaa ee Soomaalida ogaadeen ku soo jirtay qolyaha gumaysiga ugu dhow waxaa loo kala bixin jiray qaar koofiyad dhub qaar waxaa loo bixin jiray dabaqoodi qaar waxaa la dhihi jiray xawaari qaar waxaa la dhihi jiray macaan jecel marka kuwan oo yakii dhannaaba halgankii dhannaaba hoolaal ahaan isdhiibay magacii loo bixin lahaa iyagoon magac loo bixinin weli ya ha sugaan macnihii iyaga waxa u yaalla waxay tahay magacii loo bixin lahaa marka haddana anigu aan ku hormaro halgamayaal meesha soo joogtaan magacaad u bixin lahaydeen kuwan anigu waxaan dhihi lahaa ya hoolaal waxaan dhihi lahaa macaan jecel kasii macaan jecel waxaan u bixin lahaa magacyo fara badan baan u bixin lahaa anigu sida awgeed waxaa la dhihi lahaa oo kale shimbir iyo qalin hoolaal ah ayaa la dhihi karaa oo ka ganacsanaya waxaan jirin sida awgeed kuwaasi ma matalaan kamana hadli karaan halganka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen sida awgeed waxaan dhihi lahaa Soomaali meeshay joogto hal la badbaadiyo inta soo hadhay inaad ka faa'iideysataan Soomaaliya hawadiina dhulkiina iyo badiina waxaan leeyahay marka gumaysiga madow Ethiopia ha dhaco waxaan oo dhan waxa asal u ah soo bixiya dhisanahay oo gumaysiga madow Ethiopia darkiiseen ee hadda saddexda qowmiyadda ugu dambeysay ay isku haysteen kiniisadihii sida Tigrayga Ahmaarada iyo Oromada kuwaasna ay la rabaan inay la yimaadaan istaraatiijiyadii fogay ay ku kadeedi lahaayeen gumaysiga madow Ethiopia ha dhaco Soomaaliya wadaayay xorowdo soo noqdo wanaagsan waa anigu Axmed Sucaad Maxamed wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh